eedda ugu weyn maanta waxaan u diraynaa oon leenahay madaxweyne arrintaa ka fiirso madaxweynahanagii Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam madaxweyne shirkaas sida aad u gashay wakiil noogama tid haddaan nahay kuumada iyo haddaan nahay Jubbaland inta ka dhax alxamdulilaahi rabbil caalamiin wabihi nastaciinu calaa umuuri dunya waddiin allahuma salli calaa muxamed صلى الله عليه وسلم مقعي واس عبد الرحمن واس خليف واس كبيلها كومده حان ربا مانتا إن أن كهدلو أن هل كان فرين وقدرو نوع والبطابانيسا دولة فدرالك الصومالية هي الدولة قوبلات يضبا خاص أهان مدحوينها دولة قوبلات في جبلان مضاني أحمد محمد إسلام مركهوري عنادي هذا وهم بليين مدحوينها الدولة الصومالية مضاني حسن شيخ محمود هي رئيس الوزراء الدولة الصومالية مضاني حمزة عبد البر لما دولة فدرالك سي آد جهدي أو جلسي ورمركا هي الدبوليسكا إيو صومالي إني نولل aad baan ugu hambaliyay waxaan cambaaraynayna inoo ku hadlaynaa afka beelaha kuumada wax allaala wixii khilaaf ku wada arrimaha Soomaaliya iyo siday hore ugu socon lahayd oo maxay yihiin waxa iyaga koob laga soo bilaabo Carta Cabdiqaasim baan ka soo bilaabay waxa la isku ogaa oo madal walba iyo meel walba Soomaaliya iskugu timaada la isku afgaranay in laga qabto wadanka Soomaaliya doorasho qof iyo cod ah Cabdiqaasim baa soo qaatay masuuro waxa soo qaatay Cabdullaahi Yuusuf oo wadankan Kenya ninkii lagu doortay ahaa ambakaadi masuuro sidoo kale waxa ku xigay Sheekh Shariif masuuro mar walbana sabab bay lahayd waxa ku xigay Xasan Sheekh masuuro tii Xasan Sheekh hore waxa ka dhalatay doorasho dadban tii hore ninkii la dhihi jiray Cabdiqaasimna waxaan soo qaadanay dadkii joogay baan ahay Carta wax la yiraahdo 4.5 oo la rabay Soomaali markay isku timaado in laga guuro aminkan maanta aan taagana oo taariikhdu tahay 2024 Soomaali waxay dhex taagan tahay 4.5 iyo in la hor taagnaado xuquuqda shacabka Soomaaliyeed ay u leeyihiin inay wax doortaan waxna diidaan eedda ugu weyn maanta waxaan u diraynaa oon leenahay madaxweyne arrintaa ka fiirso madaxweynahanagii Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam madaxweyne shirkaas sida aad u gashay wakiil noogama tid haddaan nahay kuumada iyo haddaan nahay Jubbaland inta ka dhax waxaad wakiil noogu tood madaxweynahanagii ku tahay wixii Soomaali horumarkeeda wixii ummusha u roon yaa ilmaha u roon baa leh wixii Soomaali horumarkeedii iyo danteeda yaa Jubbalandna u roon madaxweyne waxaan la hadlay madaxweynahanagii khaaska ah ee Jubbaland daaro doondoon kuguma aanan ogeyn wakiil nagama adanahay daarood iyagoo diyaar ah oo madasha wada tashi ku jirto dawladda ugu daaweynayde dawlad goboleedyada ah oo Siciid Cabdullaahi Deni madaxweyne ka yahay yuu ka baxay shirka isagoo garanaya cawaaqibta ka imaan karta adigu daarood markaa wakiil ka mid oday daarood baa tahay madaxweynaha tahay waxaa daarood wakiil ka ah oo annagu ku ognahay hadday xumaadaan eedeeda leh hadday wanaagsadaan eedeeda leh madaxweynaha Soomaaliya waxaa ku xigoo leh ra'iisul wasaaraha wakiilka daarood meesha u fadhiya in aad shaqadiisi iyo taadiba adigu isku qaabsato marka deedna aad khalad iyo afduub meeshii la tagto madaxweyne kaamalna madaxweyne ku noqo shirka sida Soomaali dan u ah oo shacabka Soomaaliyeed dan u ah saasaan kuugu ducaynaynaa kuuna taageersanay sidaa qaado iskood bay Puntland ooga bixin shirka iskood bayna u diidaynaa adna ma keeni kartid intaa waa fariinti inta kale waxaan leeyahay dawladda Soomaaliya iyo maamul goboleedyadeeda biiwaayin adawgiinuna waa badan yahay idinkuna waa si aan la rabin baad isula wadwadaan gudaha waxaan Allah isu tanaasula ismaqla noloshiina wax badan baa diidan inaad midowdaan wax badan baa diid kuwa diidan yaan loo danaynin waxaan idin leenahay oon idinkula talinayna oon idinku boorinaynaa wax la yidhaah midnimo ismaqal tanaasul Allah idan barakeeyo wixii iga halaabay xumaan oo ma jeedo wixii aan hagaajiyeen waa sida
waxaan cod dheer ku leeyahay oon madaxweynaha Soomaaliya ka codsan oon ra'iisul wasaaraha ka codsan khaatumo state way mudan tahay shirka inay fadhiisato waxa loo reebayana ma garanayo Puntland iyadoo ku jirtay iskeed uga baxdo khaatumaha loo yeero xuquuqdooda hal la siiyo shacabka Soomaalinimaa loo dilay calanka Soomaaliya gabdhihii haystay ee xabadda dhashikaha lagu dhufanayay xasha ma mudna in barnaanka ay taagnaadaan Soomaali danaheedina laga hadlaayo waxaan idinka codsani madaxweyne khaatumo shirka in lagu martiqaado xuquuq maamul goboleedna la siiyo laba dab yay u dhaxeeyaan nimankaa waxaan leeyahay xuquuqdooda oo waafi ah hal la siiyo wixii ku dhacay iyo altaleerigi iyo madaafiicdi galdarrahayd waxay ku iloobaan madaxweyne in loo sameeyo taasna intaasaan kaga bixi Allah idan barakeeyo shirka guul baan leenahay madaxweyne guulayso ra'iisul wasaare guulayso madaxweynaha Jubbaland asagana waa dadaashay khayr Allah ku siiyo laakiin hadda madaxweyne ka soo bilow Sheekh Shariif Xasan Sheekh ku xijisi farmaajo ku xijisi Xasan Sheekh ku xijisi nin walba oo madaxweynaha ama ra'iisul wasaare meesha joogo ma la dagaal madaxweyne waxa la yiri mahma ba jirta Soomaaliya dibi hardib badan madaxu u dhintaa madaxweyne dagaal joogto ah kuma jiri karo afki Jubbaland aan ku hadlaayo oo shacabka kuumada afkoodi ku hadlaayo dagaal joogto ah kuma jiri karo maantana waxaan u dagaalaba garan mayno madaxweyne ma aanan garanin sidan aad u maareysay shirkan ma aanan garanin madaxweyne anigoo kamid aha odayaasha iyo aqoonyahanka beesha kuumadaba marka koobaad waxaan u mahadcelinaynaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo Prime Minister Xamse Cabdi Barre intaas kadib anagu ka aqoonyahan iyo ka beel ahaan waxaanu taageersanahay political vision-ka ay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu dawladda dalka Soomaaliya ay ku hogaamiyeen iyagoo wakiil ka ah bulshada Soomaaliyeed iyadoo ognahay dadka Soomaaliyeed inay yihiin dad hal family hal qoys ah haddana inta markii laga tago Soomaalidu waxbay sii qaybsadaan oo dhaqan u leeyihiin oo dawladnimadkooda iyo bulshadooda ku saleysan tahay inta markii la yiraahdo annaga beesha daarood waxa ugu matala qodobka isaga ay qaybsiga Soomaalidu xubnaha ugu sareeya jagooyinka ugu sareeya Prime Minister Xamse Cabdi Barre ayaa lagu matala isaga iyo madaxweynihiisu hogaanka ay dalka u hayaan iyo direction-ka ay u socdaan annagu waanu taageersanahay haddaan beesha ku wadanahay waxaana rabnaa siyaasadda iyada ah bulsho ahaan ka daarood ahaan ka kuumad ahaan ka Jubbaland ahaan in aan ku taageero laguna taageero sida banaanba hogaanka haddii lagu hadla iskaga maro oo labadooda iskaga maro wuu kufaa markuu kufana hadii meesha u socday ma gaaro anagoo taa ka duulayna waxaanu leenahay siyaasadda madaxweynaha iyo Prime Minister waddanka ay hadda ku wadaan bulshada Soomaaliyeed ee caqliga fayow ee fiican oo kamid nahay waxaanu ka codsanaynaa sida in lagu taageero maalinba hadii nin lagu hadla iskaga marana meel la gaari maayo barta uma la taagnaan laakiin ninkii wax la yimaada oo vision keena waddanka iyo dalka iyo dadka lagu badbaadin kara hadii lagu hadla iskaga maro waxba soo kordhin mayso meesha u baan la taagnaan libintana waa in la is ogolaado siyaasiyiinta Soomaalidu dibku wuxuu ka haystaa liminta isma ay ogola waxayna u kala maseeraan sida haweenka la qaba u kala maseeraan pointiga isaga aha wala dhibsan doonaa laakiin waa really dhab ah jirta haddaan waxa la soo ogolaanin oo hogaanka wanaaga uu keena iyo wanaaga uu wada aan loo ogolaanin ee lagu hadla iskaga maray meesha uu socon lahaa meesha uma la taagnaan annagu marka taa ka duuleena taa inayna